muddooyin hore waxaa jiray xayawaanno aad u khatar badan, aadna u waaweyn dhan jireed iyo dhan dhererba. hadday xayawaanadaasu jiri lahaayeenna ay adkaan lahayd say aadamuhu ugu noolaadaan kownkan. waxaana idinkula wadaagin muuqaalkan 3 xayawaan oo ka dabar go'ay adduunkan. markaad aragtana aad allaah ugu mahadnaqayso. assalaamu calaykum. magacaygu waa Cabdiraxmaan Jaarig. subscribe noo dhaha iyo like si aan u ogaano inta muuqaaladan xiisaynaysa. hawlgalno muuqaalka. xayawaankeena koowaad waxaa la dhahaa shimbirka Titanis. afka carabigana waxaa lagu dhahaa طائر rucb. waxa uu ka mid yahay shimbirkanu bahda shimbiraha. waana shimbir aad u xajmi weyn, mana duulo shimbirkan. waana shimbiraha hilibcunka, waxaana laga heli jiray shimbirkan waqooyiga Ameerika. dhererkiisu waxa weeyaan 2.5 mitir, garaamkiisuna wuxuu ahaa 150 garaam. wuxuu noolaa shimbirkanu casriga Balestoniyada, waana muddo hadda laga joogo 1 milyan oo sano. waxa uu shimbirkanu awood u leeyahay inuu cuno dameeraha oo ordaya iyo wax kasta oo uu helo, ha ahaato xayawaanada ama aadamaha kale. ilaahayna shimbirkan wuxuu ku galladaystay af aad u dheer una xoog badan, wax kastana u daloolinaya sida qumbihii oo kale. waana shimbir la yaabkiisa leh. wuxuu cuni jiray xayawaanada sida shabeellada, dameeraha iyo wax kale oo soo raaca. xayawaankeena labaad waa maska Totonoba. Totonoba waa mas aad u weyn oo noolaa xilligii dinosaurada, waana muddo hadda laga joogo 93 milyan sano ka hor. wuxuuna ahaa maskana Totonoba weeyaan mid ugaarsada dinosaurada. marka la barbar dhigo maskan iyo masaska kale ee hadda jira, waxaa u dhaxeeya farqi aad u weyn, maadaama uu maskanu ka weyn yahay kuwa kale dhanka dhererka iyo xajmi ahaantaba. say sheegeen cilmi-baarayaashu, waxay Totonoba ay gaaraysay dhererkeedu 10 ilaa 15 mitir. baldaawada qiyaas maska weynaantiisa soo wax allah lagu mahadiyo maaha. culayskiisu xaguu ka ahaa 1135 kiilo. dhexdiisuna waxay ahayd maskan tan ugu dhumucda weyn. Totonoba waxa uu awood u leeyahay inuu ku noolaado badda iyo barigaba, isagoo isku si wax uga ugaarsanaya. 18 nooc oo ka mid ah Totonobaha ayaa waxaa laga helay magaalada Sirkona oo ah waqooyiga Colombia. sanadu markay ahayd 2019, 18 Totonoba ayaa laga helay magaalada Sirkona, waxay qiyaas ahaan u dhaxeeyeen 25 ilaa 30 mitir. waxaana lagu soo bandhigay markii ugu horeysay macrad ama madxaf aad u weyn oo ku yaala magaalada Mareykanka oo magaciisa la dhaho Smithsonian, oo lagu kaydiyo taariikhaha qadiimka oo hore. maskan waa mas xagga dheeraynta iyo ugaarsiga khatar ku ah, waana wax allah lagu mahadiyo inuu dabar go'o maskanu. soo saas maaha daawade. adaan su'aal ku weydiiyey. xayawaankeena saddexaad waa dinosaur ama dinosaur. dinosaurku wuxuu ahaa xayawaan aad u qarweyn, hilib cunana, waxayna isugu jiraan noocyo aad u fara badan, kuwa duula, kuwa gurguurta iyo kuwa joog dheer iyo kuwa badiya bariba ku noolaada. aad ugu fara badnaayeen meelaha ka dhow yihiin sida badaha, webiyada iyo kaymaha. dinosaurku waa xayawaan ka dabar go'ay adduunkan muddo hadda laga joogo 93 milyan sano ka hor, say sheegeen cilmi-baarayaashu. waxayna ahaayeen wakhtigaas oo dinosauradu kuwa ugu caansan adduunkan korkiisa. waxayna cuni jireen kalluumada aad ka waaweyn. ilkahooduna waxay ahaayeen kuwa aad u fiiqfiiqan isla markaana awood badan. waxayna ogaadeen dhakhaatiirta taariikhaha ku takhasusay inay ogaadaan 500 oo nooc oo ka mid ah dinosaurada iyo 1,000 nooc oo kala duwan muuq ahaan iyo dherer ahaanba. waxayna ku noolaayeen qaaradaha adduunka oo dhan, waxaana u kala bixi jireen kuwa geedaha cuna iyo kuwa hilibka cuna. noocyo ka mid ah dinosaurada ayaa ku socon jiray lugaha dambe, halka qaar kalena ay ku socon jireen 4 adim. waxayna ay dhali jireen dinosauradu ukunta ama guxaanta, waxaana qolfooftiisa lagu soo bandhigay dinosaurka madxafyada adduunka oo dhan, halkaas oo noqotay meelo dalxiiska muhiim u ah lana xiisayo. markii ugu horeysay oo la helay waxay ahayd waa dinosaurkii qarnigii 19aad
waxaana dinosoorada laga qoray buugaag, filimaan iyo sawirro farshaxan qurux badan la sameeyey. Ereyga dinosaur waxaa soo saaray sanadu markay ahayd 1842 khabiirkii Ingiriiska ahaa ee cilmiga taariikhaha hore ku takhasusay ee la oran jiray Richard Owen. Dinosaurkii ugu weynaa oo la helayna dhererkiisu wuxuu gaarayay 6 mitir halka uu xajmigiisu ku ahaa 67, wuxuuna la xajmi yahay diyaaradaha aadka u waaweyn ee xamuulka. Salaamu calaykum.